ogaalkii baa iga tagay kaadadii ma ceshin karo xindhaha wax kama arki jirin gacantan si naafa oo kala saasay hayday lugta awood ma lahayna koobta waa la gelinaa tan waa sheekada Barise Xasan Isaaq oo laga soo booqday dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya kadibna halkan isbitaalka Soomaali Suudaan lagu sameeyay qalliin aad u culus nala daawo sheekadiisa bilow ilaa dhamaad iyo sidii uu guuleystay kiiskiisa magacay waa Barise Xasan Isaaq waaye waxaana ka imaaday Itoobiya gaar ahaan gobolka Liibaan buradana waxaa la igu sheegay markaan anu xawaasa markii xanuun aan dareemay xawaasa aaday xawaasada la igu soo sheegay markii adeerkay waa inta joogay uu dhahay halkaan imaaw halkaan baa burada lagu qalay dad badan baa ku caafimaaday oo halkaan imaaw waa la dhahay marka anigana burada markaa la igu sheegay baa hoogaha maskaxda waa qof wax ka gaaray oo kala noqday ogaalkii baa iga tagay kaadadii ma ceshin karo oo ma celin karo kaadadii maskaxdii gurigii aan jiifo idhita ma garanayo waa la igu aadiyaa kaadadii iyo waxaas baa aan aad uga dhibtooday marka si daraaddeeda halkan ku imaaday doctor Cabdiasiis baa u imaanay astaan baa la ii saaray oo buradii waa la arkay xal bay leedahay la dhahay waa la iga qalay markuu la iga qalay alxamdulilah aad baa u fiicnaaday xindhaha wax kama arki jirin gacantan si naafa oo kala saasay hayday lugta awood ma lahayna koobta waa la gelinaa socod ma lahayna ushaana ku tiirsanay anigoo fiilita soo maraayo gobolka Liibaan soo maraayo ushaan soo qaatay oo mid oo fadhigay la yaabay oo markaan fadhiisto waa la istaajiyaa ma istaagi karo nin islaameed baa u shaanisay oo ku tiirsay dhahay alxamdulilah maanta aad baa u fiicanahay wax dhibaato aan qabo malaha indhihii nuurkooda waa ii soo laabtay lugtii waa ii fiicnaatay gacantii waa ii fiicnaatay maskaxdii meesha qalataanka waa okay hadda alxamdulilah marka doctor Cabdiasiis aana i qalay isbitaalka Soomaali Suudaan baa la igu qalay alxamdulilah mahad weyn baa qabo marka dadkii dhakhtarkii iyo dadkii la shaqeynaya dhammaantooda waa u mahad celinaya falilaahi alxamdu washukru marka aad bay u mahadsantihiin